asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamayaa soomaalida meel walba ay joogtaa ama soomaaliya ama dibaddiisaba. Salaan kadib, halkan waxaan idinkugu hayaa barnaamij ka sheekeynaya self development oo ah qofka siduu asagu isu kobcin lahaa. Waxaa la dhahaa qofka wuxuu ka samaysan yahay wax uu cuno. Qofkii cunto xun cuna, cuntada xun buu ka samaysmayaa jirkiisa iyo maskaxdiisa iyo wax walba. Qofkii cunto fiican cunana wuxuu noqonayaa qof jir iyo caafimaad qaba oo jir iyo maskaxba caafimaad u qaba. Marka that's number one, cuntadii. Number two waxaa ah qofkii inuu wax barto. Waxaad ogtihiin Soomaaliyay, qofka wax barta iyo qofka aan wax baranin inaysan isku mid ahayn. Ruuxii wax barta wuu ka duwan yahay dadkaan waxba baranin. Waxaa Soomaalidu dhihi jirtay waxbarta aan barwaaqo gaarne. Marka hadda aad dib taariikhda u fiiriso, nin walba oo ama dadkan madoobay Mareykanka iyo Canada degan ha ahaado, ama dadkii madoobaaye Afrikaba jira ha ahaadaan. For example baan ka wadaa tusaale ahaan, dadka wax bartay, dad wax qabsaday oo noloshii fahmay oo dadkii wax kale wax bari kara oo fahamsiin karay noqdeen. Dadka aanan waxba baranin hadee xaalkooda waa si fiican baa noola soconaa. Marka waxbarashadu waa very important, iyadana waa number two. Number three waxaa in qofka uu aad isaga ilaaliyo dadka uu la macaamilayo ama dadku saaxiibada ka dhiganayo. Because ama sababta waxaa weeye, waxaa la dhahaa saameyn aan caadi ahayn buu qofka kugu yeelanayaa saaxiibkaaga. Haddii qof fiican uu yahayna waxaa laga yaabaa inaad la fiicnaato, haddii qof xun uu yahayna waxaa laga yaabaa inaad la xumaato. Marka nimankan waxay dhahaan ayadoo laftirkooda reer galbeedka ah ee dhaqaalaha iyo cilmiga hadda adduunyada afduubka ku haysta, waxaad average-ka aad leedahay ama income-ka dhaqaalaha ku soo gelayo waxaa u noqonayaa average 5 qof ee aad saaxiibada tihiin. Waxaad fiirisaa 5 qof oo aad saaxiibo la tahay, income-kooda fiiri, kuwaas aad ugama fogid. Macnaheedu waxaa weeye dadka aad la dhaqmayso ama aad la soconayso ayaa aad saameyn ugu leh xitaa dhaqaalaha aad yeelan doonta ama kusoo geli doonta. Marka aad hal isaga ilaaliyo asxaabta iyo dadka aad soo dhawaysanayso, aad ka dhiganayso saaxiibo ama la joog. Sababtoo tahay qofka waxa hormari waa ideas, fikir fiican oo maanta ku dhashay waxaa laga yaabaa inuu $1 million kaaga qiimo badan yahay. For example, marka fikirka fiicnaa marka intuu kugu dhasho aad damacdo inaad samayso, waana laga yaabaa badankiin inaad la kulanteen arrinkaas oo kale, ood u sheegto qofka saaxiibka ah, dhahdo niyo waxaasa igu soo dhashay, waxaan rabaa inaan waxaa qabto. Waxaa laga yaabaa qofka aad saaxiibada tihiin isla markiiba inuu kugu soo boodo ku dhaho maya ma la samayn karo waxaas. No, you can't do it. Ma samayn kartid. Wax kugu suuragala maaha. Resource-ki ma haysatid, dhaqaale ma haysatid, aqoonti uma lihid. Marka inuu aad kaaga niyad jabiyaa laga yaabaa fikirkii aad wadatay. Ama on the other hand, inuu isaga kugu dhaliyo fikirro kale oo aanan wax qiimo ah ama dan aan kuu lahayn. Marka dadka aad iyaduna la xiriirayso waa inaad aad isaga fiirisaa. Marka waxaa kaloo ogaataa in mar walbo ay adiga kugu xiran tahay inaad noloshaadu wax ka bedeli karto. You are in control. Adaa awoodda gacanta ku haysta. Marnaba ha dareemin in qof kale uu ku kontrolo ama controlku cid kale gacanta ku hayo. Ilaahay ka sokow, naftaada adaa mas'uulka ah. And decision go'aan gaar. Waxaad dhahdaa okay, from now on waxaan noqonayaa qof fiican, from now on waxaan sameynayaa ABC. Marka waa samayn kartaa. Waxaad ogaataa inaad samayn karto, laakiin isweydii maxaa kugu kaalmayn kara inaad qof fiican noqoto? Maxaa kugu kaalmayn kara in caafimaadkaaga improve gareeyo? maxaa kugu kaalmeyn kara in dad la socodkaaga u wanaagsanaado,
maxaa kugu kaalmeyn kara in aad qof maxaa la dhihi jiray bulshada dhexdeeda sharaf kule aad noqoto. Marka all of them aday kugu xiran tahay, cid kale oo maanta gacan kugu haysa ma jirto. marka Soomaaliya waxbarta aan barwaaqo gaarne. Waa idin salaamayaa meel walbood joogtaan. waxaan keenaynaa barnaamijyo fiican oo wax ku ool ah. waxaan idinka codsanayaa in channelkan aad subscribe gareysaan, aad lana qaybsataan asxaabtiina kale videoga. waxaan idin rajaynayaa khayr iyo baraare. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.